golaha iyo wasiirada dowladda golaha baarlamaanka iyo wafdiga la socda oo ka kooban golaha wasiirada iyo aqalka sare ee baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo guud ahaan markii sharafta halka isugu timid iyo dadweynaha faraha badan oo maanta qoraxda taagan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxay noo tahay sharaf iyo farxad weyn sida quruxda badan oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhaweyseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kale tahay runtii waxa weeye waxaan la iloobi karin taasoo ay muujinaysa inaad tihiin mar walbaan idhaahdo inaad tihiin dad dowladdooda jecel dad horumar jecel dad midnimo jecel iyo dad madaxweynahooda jecel aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa waxaa meeshaan ii muuqda horumar badan yaa ii muuqda sidaan ka soo arkay garowe aan ka soo arkay qardho aan ka soo arkay magaalooyinka guud ahaan soo maray iyo tanoo hadda ugu dambaysa oo boosaaso ah waxaa ka muuqda horumar aad iyo aad loogu farxo hadday noqoto jidad hadday noqoto horumar kale waxaan arkaa runtii dowladdiina puntland inay hor wanaagsan idiin qabatay adeeg wanaagsan idiin qabatay waana ku mahadsan yahay madaxweynihiina cabdiweli maxamed cali gaas waa ku mahadsan yahay annagoo hadda nimidna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan adeegaas wax ku darsanno oo aan wax keenno oo wax laidin soo gaarsiiyo maxaa yeele cadaaladdaa ku jirta in dalkao dhan wax alla wixii aan u hayno aan soo gaarsiino adeega cadaaladdaa ku jirta insha allah wixii hadda ka dambeeya waa soo noqonaynaa waxaan ka baqaynaa inaad tidhaahdaan martidan soo noqon badana sida wanaagsan noo soo dhaweyseen runtii waxay indhaha u furaysaa dad badan oo soomaaliyeed bacdama aanan hore loo soo gaari jirin oo lahaa dadka waa ka fog tihiin dalka waa ka fog tihiin laakiin waxaa jiray daldhaweeye dib dheeraan soo qaadnay oo aanan waxba taginba inaba ha yaraatay intaan soo soconay jidkaas dheer iskama dhici sidaas inuu ahaado muddo 27 sano markii dowladdii dhexe ka baxday meesha waxaa lagu hayay dayactir yaa lagu hayay oo hadda mar walba aan soo arkaynay dowladda hadda joogta oo idiin joogta inay faraha ku hayso dayactirkeeda insha allah dalka intiisa kalena oo burburka galay oo jidadkii xumaaday inaan iyada nafteeda soo celino oo aan soo gaarsiino jidadkan dheer oo aan aragnay oo inaba ha yaraatee wanaagsan aan soo gaarsiino insha allah hadduu la yidhaahdo wixii burburay aan soo gaarsiino insha allah hadduu la yidhaahdo magaalada waa dhex gelaynaa inta noo harsanna waa arkaynaa haddii aan wakti soo helnana waa isxog wareysanaynaa waxaan idin soo gudbinaynaa dowladda waxay qabatay iyo waxa aan qaban doono mustaqbalka soo socda idinkana waxaan rabaa inaan idinka dhegaysto waxa baahidiinu tahay waxa dareenkiinu yahay hal mid horta waa xaqiiqa nabaddu inay tahay horumar waa muuqataa dalka oo dhanna wuxuu baahanya nabad taasa waxaan mar walba niracnaan ku soo celinaa nabaddu waa nolol soomaaliya o dhanna waxaan u rajaynaynaa ilahna uga baryaynaa inuu dalkeena noqdo nabad u noqdo hadduu nabad noqdo waxyar ku yahayna wax ku gaaraynaa horumar la taaban karo oo weliba aan uga horumari karno afrikada kale maxaa yeele annagoo intaas burka ku jirnay annagoo haysanay dowlad aanan maxaan kula istaagin oo recovery ku jirtay inaan aragno horumarintaas leeg oo ay keentay sida aan maqlaayo waxa la yidhahdo isku tashi oo dhexdiina ah ummaddu markay isku tashato ummaddu markay isku kalsoonaato ummaddu markay is aaminto waxaa ka soo baxa waxa aan haysanno waxaad haysataan yaa ka soo baxa taas oo ballaaran weye waxaan doonayno meel walba inaan gaarsiino inaan isku tashanno inaan is aaminno inaan walaalowno inaan midowno intaas way waxaa farinta maanta idin hayo iyo weliba taasoo lagu daray horumar iyo dib u heshiisiin lagu daray oo aan rajaynayno muddooyinka soo socda inaan xoojino ummaddana aan isu keenno oo aan walaalayno waa mahadsantii walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu